دكتور علي حاجي آدن وزيرka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo ka mid ah isbitaalada ee gacanta ku haysa dawladda ee sida lacag la'aanta ah ugu adeegay qaybaha ugu nugul bulshada waxaana soo dhaweeyay maamulka sare ee isbitaalka. Wasiirka ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaal Banaadir sida qaybaha lagu daryeelo hooyooyinka iyo carruurta, farmashiyaha bukaan socodka, qaybta matoorada iyo korontada, qaybta lagu koriyo carruurta aan bilo dhameysan iyo qaybo kale oo muhiim ah. wuxuuna u kurgalay qaabka ay u socdaan shaqooyinka maalinlaha ah ee isbitaalka u haya bukaanada oo isugu jira haween iyo carruur, isagoo dhinaca kale warbixin ka dhageystay maamulka sare ee isbitaalka oo la wadaagay qaabka ay hawsha u socotay iyo caqabadaha jira ee xalka u baahan. wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cali Xaaji Aadan oo kormeerka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa bogaadiyay shaqooyinka hufan ee ka socda isbitaal Banaadir wuxuuna dhinaca kale xusay inay xal u raadin doonaan culeysyada iyo baahiyaha isbitaalka. muddadii la soo dhaafayba marba mar ka dambeeya nambarka bukaanka uu qaban karo aad ay u sii kordhaysay. agaasin Fartuun waxay noo sheegtay hadda in sanadkii 65,000 oo bukaan ah in la qaabilo, saddexdii sano soo dhaafayna la qaabilay 220,000 oo bukaan ah. waxay noo sheegtay in hooyooyinka ku dhala meesha sanadkii bishii ay gaarayaan 750 ilaa 800 oo hooyo inay ku dhalaan per month bishii inay ku dhalaan, oo 110 qiyaastii ka mid ah bil walba ay tahay C-section ama qalliinka ay ku dhalaan, inta kale oo qiyaastii 650 qiyaastii bil walba inay caadi u dhalaan ayay noo sheegtay. culeysyo badan oo isbitaalka haysta ayay noo sheegtay agaasin Fartuun, oo uu ka mid yahay isbitaalka running cost in uusan haysanin oo korontadii iyo maaragtay qarashaadkii isbitaalka culeysyo ay ka jiraan oo aanan maaragtay la bixinin ay noo sheegtay, taas oo aan xal u raadin doono hadduu ilaah yiraahdo. waxaan soo aragnay warehouse-kii weynaa ee maaragtay isbitaalka u lahaa ee dawada lagu keydinayay oo qaraxii ka dhacay isbitaalka agtiisa jeengadihi ay maaragtay burbureen, oo maaragtay haddeer isbitaalkii maaragtay warehouse-ka qaybta kore meelaha qaar ay iska bannaan yihiin oo dayactir xoogan u baahan, iyadoo hadda daawada dhex taalla ay dayacan tahay, air conditionna ay haysanin maadaama uu hawada sare ka furan yahay, roob haddii uu soo galana dhibaato kale ay tahay. isbitaalka waa isbitaalada referaalka ugu muhiimsan ayuu ku jiraa dawladda ay ku faanto maaragtay dadweynaha si bilaash loogu daweeyo. waxaan ku dadaali doonaa insha Allah tacaala in aan kor u qaadno capacity-giisina aan soo celino, intii capacity-giis ahaydna aan sare ugu sii qaadno ayaan ku dadaali doonaa hadduu ilaah yiraahdo. waxaan aad u amaanayaa agaasinka wanaagsan ee isbitaalka ay ku maamushay agaasin Fartuun iyo tiimkeeda. waxaan aragnay bilicda wanaagsan ee isbitaalka lagu soo kordhiyay, waxaan aragnay sida daahfurnaanta ee isla xisaabtanka ay ku jirto ee u maamusho. waxaan ku bogaadinayaa waxyaabihii wanaagsan ee isbitaalka ay ku soo kordhisay. waxaan sidoo kale maaragtay ugu baaqayaa in dadaalkaas ay sii laba laabaan. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.